العالمين ما أنت وحين إيجينا عشر هذه إنك صابسنا في veterinary medicine عشر كان لبعض أو صابسن أنت رجسك إيجينا أنت رجسك عشر كان أو صابسن بل إيجينا أنت رجسك ومحمر كهراء محا كان أنت رجسك حجو كيمي إنه حوينا سؤال إسكوي دينا يا مهمة أنت رجسك هو حنون كل عين تبضان أول مملي يارزك دمان كل حيواناتك أردن أي كل حنون كلا يهذا أنت رجسك هذه نقطة حيواناتك دورجوكتا هذه نقطة حيواناتك دبجوكتا هذه نقطة dadka wax weeyaan dhamaan wixii noolaa xanuunkan uu ku dhacaa waana xanuun khatar ah oo wax weeyaan dilaa ah oo walna aad u dilaa xanuunkan wax weeyaan antaragaska la yiraahdaa bal waxaan eegaynaa antaragaska marka hore waxa weeyaan xanuunka la yiraahdo ay Soomaalidu u taqaano inta badan kudka u taqaana Soomaalidu kud ayaa u yaqaanaan xanuunkan magaciisa caadiga ah ee Soomaali waxa la yiraahdaa kud baa la yiraahdaa af Soomaali waxa lagu yiraahdaa kud xanuunkan kudka la yiraahdo xanuun dilaa wuxuu ku dhacaa geela wuxuu ku dhacaa ariga wuxuu ku dhacaa dadka wuxuu ku dhacaa xayawaanaadka kale ee ah ugaadha ayuu ku dhacaa wuxuu ku dhacaa kale bahalaha laftigooda duqaaga kale ayuu ku dhacaa xanuunkan bacteria keenta bacteria xanuunada ayuu ka mid yahay ay keenaan bacteriyadu marka xanuunkan bacteria ayaa keenta bacteria xanuunkan keenta wax la yiraahdaa oo taakan ku taala wax la yiraahdaa bacteria waxa loo yaqaanaa Bacillus anthracis bacteria xanuunkan bacteria keenta waxa la Bacillus anthracis baa waxa weeyaan waa spore forming gram positive bacteria spore forming the bacteria called Bacillus anthracis spore forming positive bacteria Bacillus anthracis baa waxa weeyaan waa bacteria keenta xanuunkan waana bacteria gram positive ah waxa weeyaan gram negative iyo gram positive bacteria loo qaybiyaa waxayna samaysaa spore form bay samaysaa waxay samaysaa shaqal ama waxay samaysaa qalfoof adag oo ay isku ilaaliso ay samaysaa bacteriadan bacteria xanuunkan keenta markay bacteria etiology waxa weeyaan waxa keenaya xanuunka waa pathogenka keenaya xanuunka balada hadeen ogaanay xanuunka la yiraahdo kudka ama xanuunka la yiraahdo antaragaska inay keento bacteria la yiraahdo Bacillus anthracis oo wax weeyaan bacteria gram positive bacteria ah oo spore formina oo samaysata waan ku gal ama samaysata qalfoof adag ama samaysata layer adag ay samaysato aan la dhaafi karin samaysata bal waxaan eegaynaa xanuunkan maxaa kamid ah transmissionkiisa iyo qaabka u gudbo transmissionku wax weeyaan qaabka xanuunku u gudbo oo ugu soo gudbo noolaha kale ama xayawaanaadka kale ama dadka ugu soo gudbo xanuunkan marka koobaad wuxuu ku gudbaa inhalation in badan waa inuu soo sharaxay markan xanuunada aynu mareynay inhalation ba xanuunka lagu qaadi karaa inhalation waxa weeyaan xanuun inhalation bay ku qaadi karaan waxa weeyaan spore forming iyo ay hawadu qaaday ama waxa weeyaan particleski saxaradii ka koobnaayeen ay hawadu qaaday ay hawada ka neefsanayaan oo wax weeyaan ay hawada ka qaadanayaan dabeetana wax weeyaan neefkii saasuu ku noqonayaa neef xanuunkii uu soo gudbay taas waa inhalation markay inhalation ku qaadayaan waxa weeyaan bit flies bay ku qaadi karaan insecticides qaar insecticides kasta maaha flies ama insecticides qaar ayaa capable wax u leeyihiin inay xanuunka gudbiyaan bay awood u leeyihiin kudka la yiraahdo hadduu uu qaniino xoolihii ama dadkii uu qaniino insectiga cayayaanka qaba xanuunkii kudka ahaa laftiisa wuxuu isagu gudbinayaa dhammaan xayawaanaadka kale wuxuu gudbinayaa dugaagii wuxuu gudbinayaa xoolihii wuxuu gudbinayaa dadkii marka insecticideskaasi kaaba barka wala inay qaadaan bacteriyada laftigeeda wax weeyaan way qaadayaan waa soo gudbinayaan waxay markay neefkii qaniinaana saasoo ku qaadaya antaragaskii ama kudkii ku qaadaya neefkii waxa jirta kale ingestion waxa weeyaan contaminated feed ama contaminated water ama contaminated environment oo waxa weeyaan uu neefkii daaqo oo cuntadii taalay ama geedihii yaalay uu cuno ama biyihii uu ka cabo meeshiina waxa weeyaan ay uu joogto bacteriyadan ay ku fara badan tahay la yiraahdo antaragaska markaas waxa weeyaan xoolii markay cunaan feedkii iyo waterkii biyihii markay cabaan ama laftigeeda dhulkii laftigeeda hadii ciidii ku galgalineystaan waxay sameyn kartaa skin abrasion inay skinka ay ku qaadaan oo wax weeyaan meel lesion oo daloosho ay ku dhacdo ay halka isku multigreen ay ku fara badato ayaa dhici karta oo neefka intuu meeshii ku galgalimeysto ama neefka meeshii uu ku dhalo oo kale inuu ka qaado oo bacteria joogto bacteria wax weeyaan in badan ayay xaweyaan ku aasnaan karta ciida wax weeyaan waa facultative bacteria
vegetative bacteria in badan ayay joogi kartaa environment-ga waa sanadood ilaa baan ku 50 sano 100 sano 200 oo sano 300 oo sano waxa weeyaan way ku jiri kartaa environment-ga waxa weeyaan in environment-ga laftigiisa ku jiri kartaa oo deegaanka waa laga heli karaa bacteria ciidaasay wax weeyaan isku qarinaysa ama ciidaasi ay ku nooshahay marka wax weeyaan mar uun bay chance eeganaysa ay ku dilaacdo ay ku soo baxdo markaasna wax weeyaan ama xayawaanaad ha jiiraan oo ha soo saaraan ama markuu temperature ku gaaro 20 ilaa 40 centigrade sideeda iskaga dilaacdo waxa weeyaan chance ka markay hesho way dilaacaysaa wax kasta oo lagu qaadi kara waana xanuunkan waa xanuun dilaa Soomaali kud bay u taqaan geel way ku habaaraan kud ku dil waxa weeyaan xanuun kale wax weeyaan lagu habaaro xanuunka way ma jiraan kud inuu ku dilo geela oo laga kud ku dil marka weeyaan xanuunkan waa xanuun dilaa bal waxaan eegaynaa xanuunkan symptomskiisa waxyaala kamid ah symptomska xanuunkan waxyaala kamid ah baan eegaynaa symptomska waa kuwan xanuunkan symptomskiisa waxa kamid ah loss of appetite neefkii oo weeyaan iska taaga loss of appetite neefkii oo waxba daaq waayo neefkii oo waxba daaq waayo waxa kamid ah severe depression and dullness severe depression or dullness ba kamid ah in neefkii uu aad aragto neefka inuu xanuunku ka muuqdo oo xanuunku uu lafta kaga jiro xanuun neefkii oo wax weeyaan saas baan ku ayars ka foorara oo wax weeyaan aan dhaqdhaqaaq iyo xarakaad iyo aan waxba lahayn la neefku ku caafimaad qabo marka halka aad neefka aragto ayaad ka garanaysaa inuu neefkani neef xarakaad bixinayo oo wax weeyaan soo jeeda oo uu yahay hadduu qof soo agmara cararaya oo hadii bahal iyo waxa uu dareemo bif oranayo oo boodaya laakiin si xayawaan neefkii ay xushmadu fuushay oo dhogortiisa macalay laftigoodu madow tahay wax weeyaan ayaad arkaysaa neefkii oo dhogortiisa madow tahay xanuun la il daran ayaad arkaysaa markuu neefku xanuunka la il daran yahay marka kale oo kala jaad waxa kale arkaysaa suspentigu xoolaha wanagu kala qaybinay qaar ruminant ah oo aynu wax leeyahay for stomach iyo qaar ah monogastric aynu hal calool bay leeyihiin xayawaanaadka leh ruminantu afar caloolood bay leeyihiin marka rumination waxa weeyaan suspended rumination neefkii oo daayay ala naqsiga waxa weeyaan neefkii oo daayay rumination neef markuu geedaha cuno waad aragteen wuxuu sameeyaa habeenkii oo kale geedu maanta dhan soo cunayay ayuu soo cala naqsada markuu soo cala naqsado ala naqsiga waxa la regurgitation markuu soo cala naqsado dib buu wax weeyaan hadana u liqaa marka waxa weeyaan neefkii waxa weeyaan wuu iska deynay ala naqsiga waxa weeyaan inuu neefku waxa raamsado habeenkii oo kale waxa neefku inuu raamsado sax markuu neef caafimaad qabo inuu raamsiday marka neefkii raamsiga uu joojinaya oo rumination weeyaan wuu iska deynaya ala naqsiga ama raamsiga uu iska deynaya neefkii oo waxa arkaysa neefkii aan raamsanaynin oo wax raamsi aan sameynaynin oo iska taagan oo waxa weeyaan meel iska fadhiyo xoolaha neefka ama xerada ama xoolihii kale aan soo dhaxgalina ismadoobeynaayo meel gaar ah fadhiya ama meel gaar ah taagan waxa arkaysa increase respiration rate increase respiration rate waxa weeyaan waxa kordhaya respirationki wadna garaaci neefka ayaa kordhaya oo aad u kordhaya marka la cabiro neefki dhaysniya difficulty of breathing in neefki ku adkaato inuu neefsadaba ayaa dhici karta blood in the milky waa lagu arkaa sometimes waxa lagu arkaa dhiig baa lagu arkaa caanaha laftigooda marka neefki la soo raacaya treatment and convulsion baa lagu arkaa neefkii oo gariiraya walina waxa weeyaan few animals xoolaha qaar kamid ah sameeya convulsion inay gariiraan ma xoolo dhameystiran convulsion baa lagu sameeyaa neefkii oo gariiraya iyo treatment neefkii oo waxa weeyaan muscleskiisa ay stiffness noqdeen muscleskiisii ama muuqiyadiisii neefka ay adkaadeen baa lagu arkaa waxa kala lagu arkaa blood from opening meelaha neefka furan dhiig ka yimaada waa natural opening baa jira nooska anaska nooska mouthka falfaha waxa weeyaan meelaha dhammaan furan oo ay ku jiraan kuwa anaska iyo falfaha iyo nostriliska ay ku jiraan waxa weeyaan dhiig ba ka imanaya neefkii oo waxa weeyaan dhiig ayaad ku arkaysaa waxa kamid tahay calaamadaha lagu garto kuwa ugu waaweyn ka tahay in neefkii waxa weeyaan sankii iyo afkii iyo futadii meel kasta uu dhiig ka yimaado ayaad ku garanaysaa markuu neefku uu hayo xanuunka leeyahay kudka markuu hayo neefka ayaad ku garanaysaa waxaad kale aad ku garan kartaa tender death in acute disease xanuunkan waxa weeyaan acute bileeyahay acute bileeyahay subacute marka qaar kood uu noqdaa laakiin se inta badan xanuunka waxa lagu gartaa oo calaamadiisa kamid ah tender death inuu neefku markiiba dhinto waxa weeyaan geligiisuba waxay 2 saac 3 saac 4 saac 5 saac meelaha uu dhintaa dhici karta inta badanna sida ay saynisyahano sheegan xanuunka inta badan waxa weeyaan neefka wuxuu hayn karaa geligiisuba waxa weeyaan ilaa 2 week buu hayn karaa neefka
وهو مربط بيهاي أنا در أكيوت مربط أنا حين أو هي أكيوت disease وهي أو جرتان نفهم مركب أعطوا لمن لكن ثنا لث وعلى ماذا وف برها بدن نفهم وقت نفهم مركب بدينتو هي سبتسيميا أي كم ده ديجو أي هذا بكتيريا دني سبتسيميا ديجو أو سمو ولفتجيس أي سبتسيميا وهذا أي كم ده ماسكال تريموس أي كم ده مركب النفهم أو هذا oo waxweeyaan marka waxweeyaan ama neefki postmortem lagu sameeyo examination postmortem examination marka neefki lagu sameeyo stiffness ma ku dhacay muscles-ka way adkaanayaan neefki ama uu nool yahay waxweeyaan way ku dhici karaan xanuunkan gudka la yiraahdo waxweeyaan oo xanuunka antargas adduunyada loo yaqaan magacyo fara badan kamid ah xanuunada waxweeyaan magacyo kale uu leeyahay oo synonymous ah oo magacan antargaska u dhigma splenic fever ba kamid ah waxa kamid ah wound soreness disease ba kamid ah antargas ba kamid ah xanuunkan waxweeyaan waa xanuun Soomaalida aad ugu fara badan wax weeyaan Soomaalida inta badan aad ugu marax xoolaha Soomaalida laakiin si mar muuqaal kudku oo wax weeyaan oo aad u qarxayo wax weeyaan deegaanka ka qarxa laakiin si xanuun aad u fara badan maaha laakiin si bacteria asaas sababaysa la yiraahdo wax weeyaan Bacillus anthracis xanuunkan wax weeyaan waa xanuun dilaaya dadka iyo xayawaanka xanuun aad u dilaaya weeyaan khatar xanuunkan weeyaan oo mucjisooyin kamid ah waxaan eegaynaa qaybta kale ee treatmentigiisa iyo xanuunkan sida loo kantaroolo iyo xanuunkan sida looga hortago sida loo dhanaskaleeyo loo baaro ayaynu eegaynaa waxa kamid ah in lagu dhanaskaleeyo microscopic ba leegaya microscope-ka lagu eegaya examination of blood smears neefkii ba dhiig laga soo qaadaya ama waxa laga soo qaadaya dibka ama waxa laga soo qaadaya dhigaha laga soo qaadaya neefkii ama waxa laga soo qaadaya fiinka ama waxa weeyaan fiiniska laga soo qaaday dhiig baa neefka laga soo qaaday marka under microscope lagu eegi karaa waxa kale lagu arki karaa lagu ogaan karo diagnostics kamid lagu arki inuu dhiig madow ka yimaado meelaha natural opening kan sheegaynay ee anaska iyo falfahi iyo mouthki inuu dhiig madow ka yimaado neefka markuu dhinto oo kale ayaa waxa weeyaan lagu diagnostic karaa wax lagu diagnostic karaa sudden death in climate charges inta badan xanuunkan wuxuu dhacaa markii cimilooyinka isbedelaan ayuu dhacaa marka hadii climate changes sito oo xanuunkan qarxan waa lagu diagnostic karaa kantaroolka xanuunkan waxa kamid ah waxa lagu kantaroolaa isolation affect animal in xoolihi xanuunkan qabay xoolaha kala laga saaro gooni looga saaro in dib animal died animal xoolihi dhintay in la aaso ilaa 2 mitir oo hoos loo qodo si neefkii mar labaad aan loo soo fagin ama bahaliyo waxa soo fagin in neefkii markuu dhinto in neefkii markuu bakhtiyo la aaso oo ilaa 2 mitir oo hoos loo qoro si aanay bacteria mar labaad aanay u qarxin ama neefkii wax weeyaan bahala iyo waxaas wax weeyaan dugaag aanay soo fagin waxa kale kamid ah in meelihii Restorative fodder by burning meelihii waxa weeyaan inta badan xanuunkan ka dilaacay geedihii ku yaalo dhan hadii la awoodi karo in la gubo ayaa kamid ah annual vaccination in sanadkiiba life attenuated vaccine lagu xoolaha lagu talaalo oo sanadkiiba mar la talaalo ay kamid ah dawooyinka la siin kara oxytetracycline baa la siin karaa neefkan oo wax laga siin kara oxytetracycline 5% baa la siin karaa body weight-kiisa tan neefkan la soo saaro body weight-kiisa miisaankiisa ayaa taa lagu mudi karaa dawada oxytetracycline-ka lagu mudi karaa waxa la sameyn karaa in penicillin bencentilin la siiyo streptomycin penicillin iyo streptomycin oo isku daray inta badan markuu yahay baan ku early stages-ka waxa la siinaya oxytetracycline baa la siinaya waxa weeyaan marka dambana waxa laga mudi karaa waxa weeyaan haduu sii xumaado xaada neefka soo xumaato in la siiyo penicillin streptomycin oo waxa weeyaan la isku daro ayaa dhici karta waxa weeyaan dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa channel-kan subscribe gareeyna casharo ku taxalluqa barashada xoolaha nool iyo wax weeyaan barashada deegaanka deewasha wax weeyaan subscribe gareeya like gareeya wixii comment ah nooga taga dhamaantiin waan salaameynaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh